magaalada Muqdisho waxaana shirkaasi ka qayb galay wakiilada in ka badan 50 dawladood oo kamid ah dawladaha saaxiibka dawladda Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa shir gudoomiyay shir looga hadlayay qorshaha deymaha looga cafinayo dalka oo ay ka soo qayb galeen wakiilo ka socda wadamada deymaha kule Soomaaliya iyo hay'adaha caalamiga ah. Xeerlaaliyaha guud ee qaranka oo ku sugan magaalada Garowe ee xarunta dawlad goboleedka Puntland ayaa kulan la qaatay bahda saxaafadda waxa uu kala hadlay fahamka waajibaadka aasaasiga ee saaran saxaafadda. Wararka dibaddana waxaa ka mid ah askar ka tirsan ciidanka dalka Mali ayaa lagu dilay deegaanada xadka ee Burkina Faso oo ay ka dagaalamaan kooxo xag jir ah. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كلنتي وناكسن كسو دبادا warka tooska ee sagaalka fiidnimo ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed oo si toos ah idinkaga imaanaya xarunta dhexe ee telefishinka qaranka oo ku leeyahay magaalada Muqdisho. Qodobada warka caawa haduu la idmo aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu soo xiray shirka madasha iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka oo muddo 2 maalmood ka socday magaalada Muqdisho waxaana shirkaasi ka qayb galay in ka badan 50 dawladood oo kamid ah dawladaha saaxiibka dawladda Soomaaliya. dhinaca kalena Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu shir gudoomiyay shir looga hadlayay qorshaha deyn cafinta Soomaaliya kaas oo ay ka qayb galeen wakiilo ka socda wadamada deymaha kule Soomaaliya iyo hay'adaha caalamiga ah. Xeerlaaliyaha guud ee qarankana isagoo ku sugan deegaanada dawlad goboleedka Puntland waxa uu magaalada Garowe kaga qayb galay kulan ay isugu yimaadeen bahda saxaafadda ee deegaanada Puntland waxaana kulankaas looga hadlayay fahamka waajibaadka aasaasiga ee saxaafadda. askar ka tirsan dalka Maalina waxaa dilay kooxo xag jira kadib weer lagu soo qaaday xero ciidamadaasi iyo kuwa Faransiiska ee dalkaasi ku suganba ay joogeen oo ku taala xadka dalkaasi uu la wadaago wadanka Burkina Faso. intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii warka weynimo ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed kooda ugu door corona u diyaar garooba isagoo fidsan oo goornaadisi aan baqaado insha Allah. markale daawadayaal kulanti wanaagsan ku soo dhawaada warka fidsan. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu soo xiray gelinkii dambe ee maanta shirka madasha iskaashiga Soomaaliya iyo caalamka muddo 2 maalmood ka socday magaalada Muqdisho waxaana shirkaasi ka qayb galay wakiilo ka badan 50 dawladood oo kamid ah dawladaha taageera ama saaxiibka dawladda Soomaaliya sida warkan ay ku faahfaahinayso Nasra Bashir Cali. iskaashiga Soomaaliya caalamka oo maalintii labaad ka soconaya magaalada Muqdisho ayaa waxa shir gudoomiyay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyadoo ay maanta ka soo qayb galeen madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. shirka ayaa maanta intiisa badan looga hadlay tubta siyaasadda loo dhan yahay, tubta horumarinta dhaqaalaha, tubta horumarinta arrimaha bulshada iyo tubta amniga iyo cadaaladda horumarkii laga gaaray iyo wada shaqaynta horumarinta mustaqbalka dadka iyo dalka Soomaaliyeed iyadoo taageerada beesha caalamka lagu saleynayo tubaha qaranka. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa cadeeyay in dhalinyarada Soomaaliyeed oo tirada ugu badan bulshada Soomaaliyeed ay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan horumarka dalka, haweenka dadka baahiyaha gaarka ah qabana ay diyaar u yihiin ka qaybgalka siyaasadda taas oo meesha ka saaraysa dhaqankii hore ahaa in siyaasadda dalka ay hogaamiyaan koox yari. dhammaan mas'uuliyiintii khudbadaha ka jeediyay ayaa kulanka ku amaanay horumarka ay ku tilaabtay Soomaaliya waxayna ballan qaadeen inay sii wadayaan garab istaaga shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa shirka ka sheegay in wada shaqaynta madaxda qaranka ay horseeday in horumar laga gaaro isbedelada xasiloonida dawladnimada iyo ajandayaasha dib u qaabaynta ee ay sida wada jirka u taageerayaan shacabka Soomaaliyeed iyo saaxiibada Soomaaliya ee caalamka kuwaas oo soo celiyay rajadii ummadda Soomaaliyeed. Undeniable collaborative relationship between wada shaqaynta naga dhaxaysa aniga iyo madaxweynaha ayaa ah dhaqan siyaasadeed oo ogolaaday in la joogteeyo isbedelka horumarka dhabta ah iyo xasiloonida. waxa aan madaxweynahayga uga mahadcelinayaa hoggaankiisa xigmadaysan. Second,
Our governance and marka labaad dowladdeena iyo dib u habeynta waxaa rajadii la qabay ay u tarjumeen mid run ah meel kasta oo ay joogaan dadka Soomaaliyeed xaafadaha fogfog iyo isu soo baxyada bulshada iyo doodaha siyaasadeed ee bulshada ayaa noqday kuwo aad muhiim u ah. the most significant indicator of our citizens' confidence is that our business community are now a key tilmaamta ugu wanaagsan ee cadeynta u ah in kalsoonida muwaadiniinta Soomaaliyeed ay soo laabatay ayaa ah in ganacsatadeenu ay qayb ka yihiin isbeddelka. Ganacsatadu waxa ay bixiyeen cashuurtii ugu badneed ebed waxa ayna dalbanayaan isla xisaabtan joogto ah waxa ay aad u daneynayaan hanaanka ay dawladdu wax u maamulayso. are being utilized. shirkan oo wajigiisii hore lagu qabtay magaalada Brussels ee wadanka Belgiumka ayaa Muqdisho martigelisay sanadkan waxayna u muujinaysaa ummadda Soomaaliyeed in dawladnimadooda ay taabagelayso isla markaana ay martigeli karaan shirar caalami ah oo arrimaha Soomaaliya looga hadlayo kuwaas oo horey loogu qaban jiray dalka dibadiisa taasoo ku timid dadaalka iyo iskaashiga shacabka Soomaaliyeed ee dawladooda. Masar Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho. haddaba shirkaasi labada maalin ka socday magaalada Muqdisho ee maanta gelinkii dambe la soo gabagabeeyay waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban qodobadii ka qaybgalayaasha shirka ay ku heshiiyeen ama la isku afgartay. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Danjire Axmed Ciise Cawad oo markii uu soo gabagaboobay shirkan kadib la hadlay warfadiyeenada ayaa waxa uu faahfaahiyay warmurtiyeedkii shirkan laga soo saaray. beesha caalamku waxay aqoonsatay horumarka ay Soomaaliya samaysay waxayna ku amaaneen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya horumarka macnaha leh ee la gaaray ee ku saabsan fulinta isbedelada laga sameeyay xagga ismaamulka lacagta ururinta dakhliga iyo isla tashigii ku saabsanaa qorshaha horumarinta dalka iyo dib u habeynta lagu sameeyey hay'adaha amniga iyo horumarka laga gaaray in la qabsado dhul ay al-shabaab haysatay lana xasiliyo iyo horumarka laga gaaray waxqabadka arrimaha bulshada iyo horumarka laga sameeyey dib u heshiisiinta gobollada qaarkeed. waxaa la isla qiray inay jiraan weli caqabado ama taxadiyaad ay tahay in laga gudbo kuwaasoo ay ka mid yihiin in shaqo loo abuuro dhallinyarada in dhaqaalaha la kobciyo in la sii wado la dagaalanka al-shabaab iyo in maaragtay arrimaha bani aadamnimada dhibaatooyin ka dhasha guul laga gaaro oo la abuuro waxa la yidhaahdo resilience ama adkaysi ku saabsan dhibaatooyinka bani aadamka iyo in asaaska loo dhigo wada tashiga siyaasadeed iyo in la xoojiyo oo la ixtiraamo xuquuqul insaanka iyo in haweenka iyo dadka laga badan yahay la siiyo ka qaybgal iyo masalaad. Soomaaliya iyo beesha caalamka ee goobjoogga ahaa waxay ku heshiiyeen wax la yidhaahdo mutual accountability framework oo ah isla xisaabtanka ee loo dhan yahay kaasoo ah in culayska la saaro meelo gaara oo u baahan waxqabad iyo resources intaba sidii loo gaari lahaa arrimahaas inta ka horeysa
bisha December 2020 Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa shir gudoomiyay kulan ama shir looga hadlayay qorshaha deymaha looga cafinayo dalka oo ay ka qayb galeen wakiilo ka socda wadamada deymaha ku leh Soomaaliya iyo hay'ado caalami ah sida mar kale ay warkan ku faahfaahinayso Nasra Bashiir Cali. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa gudoomiyay shir gaar ah oo looga hadlayo qorshaha deymaha looga cafinayo dalka oo ay ka soo qayb galeen wakiilo ka socday wadamada deymaha ku leh Soomaaliya Bangiga Adduunka ee Hay'adda Lacagta Adduunka. Kulanka ayaa la isaga xog waraystay heerarkii kala duwan ee uu soo maray qorshaha deymaha looga cafinayo dalka oo meel wanaagsan maraya hadda iyo diyaar garowga shir sanadlaha ee dhacaya bisha Oktoobar. Ka qaybgalayaasha shirka oo qayb ka ah ergada shirka madasha iskaashiga Soomaaliya caalamka ee Muqdisho ka socda ayaa ku amaanay dawladda Soomaaliya sida ay uga go'an tahay ka guulgaaridda qorshaha deymaha looga cafinayo dalka. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay inuu cad yahay ajandaha muhiimka ee deymaha looga cafinayo dalka uuna dubdhexaad u yahay dhammaan qorshayaasha dib u habeynta ee ku socda Soomaaliya. Dadka Soomaaliyeedna ay ka midaysan yihiin aadna u rajaynayaan in dalka deymaha laga cafiyo maadaama ay aaminsan yihiin in deyn cafintu ay muwaadin kasta oo Soomaaliyeed ay dan u tahay qaybna ay ka qaadanayso horumarka iyo mustaqbalka dalka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa sidoo kale u sheegay ka qaybgalayaasha in ganacsiyada Soomaaliyeed ay bixiyaan canshuurtii ugu badnayd dakhliga dalkana uu kordhay arrintaasina ay qayb ka tahay horumarka laga sameeyay dhaqaalaha kuna timid hanaanka dawlad wanaag ee ka hana qaaday Soomaaliya. Wasiirka Maaliyadda ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa warbaahinta qaranka u warbixiyay muhiimadda uu lahaa shirkan. Shirkani wuxuu ahaa shir gaar ah saad u sheegteen wuxuu bilaabmay 8 waxaa lagaga wada hadlay waxa weeye sidii deynta Soomaaliya looga cafin lahaa iyo shirkan soo socday weyn oo maanta dhamaad noqon doona hadii la yiraahdo maalinta dhamaadkeeda wixii lagaga wada hadli lahaa baa laga wada hadlay wixii loo baahan yahay deynta in la cafiyo ayaa laga wada hadlay xagga iyaga halkaan taaganahay meeshaan marayno ayaa laga wada hadlay xagga dawladaha iyo dadka deynta inagu leh iyaguna waxay ka hadleen ama dawladaha noqdaan ama ha noqdaan beesha caalamka kale waxa iyaguna ka hadleen sida ugu diyaar garoobayaan in Soomaalida deynta laga cafiyo iyo wixii deynta cafinta dabadeed imanaya ayaa laga wada hadlay runtii waxa weeyaan shir yar oo kooban buu ahaa oo dadka ay khusayso oo kaliya ka soo qayb galeen ra'iisul wasaaruhu wuxuu horseed ka noqday markaa inuu u sharaxo halkaan inagu taaganahay iyo arrimaha maanta aan wadno ee wadada deyn cafiska ee aan soconaa inay tahay wax annaga noo dana aanay ahayn wax dad kale aan ugu danaynayno ayaa laga wada hadlay marka shir diyaar garoobo shirka kale weyn ayuu runtii ahaa waxaana gaar ahaan looga hadlayay waxa weeye wadadan socono iyo arrimaha maanta aan doonayna inaan qabano. Deyn cafintu waxay dalka u ogolaanaysaa maalgelin horumarineed ee waqtiga fog waxayna sidoo kale sare u qaadaysaa dakhliga gudaha iyo in maalgelin lagu samaysto caafimaadka waxbarashada biyaha waxayna albaabada u faraysaa in malaayiin dollar lagu maalgashado dalkeena. Nasra Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho. Allah u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow duqii hore ee magaalada Muqdisho kaalin noocee ah ayuu ku lahaa gurmadkii qaran ee la sameeyay 2 sano ka hor 14 Oktoobar markii uu dhacay qaraxii ugu dhimashada iyo dhaawac badnaa ee abid ka dhaca dalkeena oo ay hadda 2 sano ka soo wareegatay. doorkii uu ku lahaa 14 Oktoobar masiibadii weyneed ee dhacday markii galabnimadii arrintu ay dhacday isaga wasiir noo ahaa isla galabnimadiiba wuxuu isugu yeeray wasaaradda agaasimayaashii iyo dadka shaqada lahaa wuxuu amray in loo hawlgalo sidii dadka Soomaaliyeed loogu soo bandhigi lahaa waxyeelada halkaas ka dhacday dareenka dadka Soomaaliyeed loo baraarujin lahaa. 7 maalmood oo si xiriir goobtaas wasaaraddu ay uga shaqeynaysay 7 maalmoodba meesha ay joogay wuxuu kamid ahaa guddiga qaran ee shaqadaas loo saaray dadka ugu firfircoonaa ee shaqadaas muxuu ahaa qaybta ugu weyn ka hayay
waana la wada xusuustaa doorkii ka dhashay ama baraarugii dadka Soomaaliyeed ay ka qaadeen arrintaas oo keenay gurmadkii baaxadda weynaa ee halkaas laga qabtay. guuradii ka soo wareegtay masiibadaas wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir wuxuu mar kale hoggaan ka ahaa muujinta foolxumadii argagixisada al-shabaab ay geysteen iyo sidii dadka Soomaaliyeed muxuu ahaa loo dareensiin lahaa in ayna iloobin gafkii iyo xasuuqii argagixisada ay shacabka Soomaaliyeed u geysteen isagoo gudoomiyaha gobolka ah ayuu dhex taagnaa. waxaan xusuustaa waxaan kamid ahaa guddiga shaqada ka shaqeynaya marka sanad guuradii koowaad markii arrinta ay ka soo wareegtay mas'uuliyiintii markasta meesha taagnayd oo fikradaha keenaya oo talooyinka keenay ayuu kamid ahaa marka ugu dambeynna wuxuu ku shahiiday isagoo shaqadaas qaranka ku jira ayaa argagixisadu dad ay soo muxuu ahaa marin habaabiyeen ayaa muxuu ahaa waqtigiisii ama sababtii la soo saaray waqtigiisa ayuu ku dhintay dadka Soomaaliyeed inuu shakhsi calaamadihii shahiidka leeyahay ayuu muujiyay. runtii waxa kaliya muujinaysaa waxay tahay haddana shaqadii way socotaa dad kale Soomaaliyeed sii wada argagixisada waa inay ogaadaan Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa dhul iyo xaaqin dhulka ayaa har xaaqinka ayaa dhamaada dadka Soomaaliyeed iyo argagixisada dadka Soomaaliyeed ayaa soo hari doona biidnillaahi kariim qofka ku shahiida ee gacantooda ku baxana wuxuu ahaa harsan doonaa muxuu ahaa xadiiskii ahaa qofka ay dilaan iyo qofka dila labaduba waa ahlu janno marka caqiidadaas adag dad leh oo aaminsan oo ku nool way dadka Soomaaliyeed kuwa shahiidayna muxuu ahaa daar wanaagsan iyo jannatul firdawsa ayaan u rajaynaynaa kuwa noolna dariiqaasi ku taagnaanayaan marka ugu dambeysana insha Allah tacaala fikirka sharta ee khawaarijta iyo argagixisada uu dhamaan doona. xeraalyaha guud ee qaranka oo ku sugan magaalada Garowe ayaa halkaas waxa uu ka qayb galay kulan ay isugu yimaadeen bahda saxaafadda ee deegaanada Puntland waxaana kulanka looga hadlay fahamka waajibaadka asaasiga ee saxaafadda. Yuusuf Maxamed Maxamuud ayaa warkan Garowe ka soo diray. saxafiyiintan ayaa baranaya faham ku saabsan arrimaha xuquuqul insaanka iyo waajibaadka sharciga asaasiga oo saxafiga waxaana tababarkan soo agaasintay xarunta difaaca xuquuqul aadanaha Puntland oo kaashanaya ururka ay ku midaysan yihiin saxafiyiinta Puntland ee MAP. Maxamed Yuusuf Cali gudoomiyaha xafiiska difaaca xuquuqul aadanaha Puntland ayaa ka hadlay ujeedooyinka aqoonsi weydaarsigaani in saxaafadu helaan macluumaad siinaya kordhinayana aqoontooda in xirfadda saxaafadda la xoojiyo habdhaqan bulshadu aqbashana la abuuro saxaafadda oo lagu tababaro xeerarka dalka iyo kuwa caalamka ee xuquuqda aadanaha in la abuuro jawi wada shaqayn u dhaxeeya saxaafadda iyo bulshada ay u shaqaynayaan iyadoo mid kasta la fahansiinayo doorka uu ku leeyahay nabadda iyo ammaanka in la horumariyo xaaladda xuquuqda aadanaha iyo adeega saxaafadda ee maxaabiista iyo deegaanada ay ku yaalaan saldhigyada saxaafadda tababarka laga samaynayo. gudoomiyaha ururka warbaahinta Puntland ee MAP Maxamed Daahir Caansan oo kulankaani ka hadlay ayaa tilmaamay habka ugu wanaagsan ee loo sixi karo khaladaadka ka dhaca saxafiga. aan ogolahay waxa way bin aadan baanu nahay warbaahinta iyo wariyaashu khalad uu ka dhici karaa khaladkaas sifada sharciga oo la ogol yahay ha loo soo maro dawladda annagu waxaan ogolahay qofkii naga khaldama waxa way oo naga mid ah laba siba wixii in qofkii la keeno aynu garanno oo garnaqsi halka loo soo fariislay waxaas ku khaldantahay waxaas samaysay sababtaas aan ku yeelay aynu waxayna xal mastuur ku dhameysano haddii taas aysan jirin
qofkii dacwadiisu ay waxa la yiraahdaa uu dacwad wata uu maxkamadda yimaado xeerlaalintaas waxa weeye dacwadooda ay soo dhisato lawyer annaguna soo qabano banaankaas iyo fagaarahaas lagu yimaado sharciga lagu kala baxo xeerlaaliyaha guud ee qaranka Dr. Axmed Cali Daahir oo tababarkan si rasmi ah u furay waxa uu kula dardaarmay saxafiyiinta Puntland sare u qaadida aqoonta saxafiga isdiiwaangelin sharciyeysan wadaniyada iyo barashada shuruucda iyo xeerarka dalka xaq kasta waxa garab socda waajibaad waligiin fiiriyo xuquuqdaada marka la sheego waajibaadka saaran waa la sheegaya ama waajibaadkaaga marka la sheego xuquuqduna waa in la sheegaa qaanuunku saas u qoray ha qaadanin oo kaliya xuquuqda xaqa wariyay kaliya ha qaadanin waajibkii saaran ilaaliya haddaad xuquuqna raadisid waajibkaagina aadan fulinin adna waa lagu xadgudbayaa simple حقوق rights and responsibilities every single person every entity wax kasta oo la qabanayo xuquuqna waa leedahay waajibaadna waa ka dhalanaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin shirkin waa idin furan yahay Yuusuf Maxamed Maxamuud warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Garowe magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxaa lagu qabtay xaflad oo xilka kula wareegayay duqa cusub ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxaana ka qayb galay xafladaasi xil wareejinta ah gudoomiyaha golaha wakiilada ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulkaas iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baydhabo wariyaha warbaahinta qaranka uga soo warama magaalada Baydhabo Siraaji Sheekh Isxaaq ayaa ka soo waramaya munaasabadan xilka ay ku kala wareegayeen gudoomiyihii hore ee maamulka degmada Baydhabo Mudane Cabdullaahi Cali Watiin iyo gudoomiyaha cusub ee dhawaan ay soo magacawday wasaaradda arrimaha gudaha dawladaha hoose iyo dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed Xasan Macalin Axmed Bikole ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha golaha wakiilada dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Mudane Abduqaadir Shariif Sheekhuna Maye wasiiro xildhibaano gudoomiyaha maamulka gobolka Baay ganacsato haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka munaasabada ugu horeyn waxaa ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada magaalada Baydhabo waxaana in badan ammaan ay u soo jeediyeen gudoomiyaha hore ee maamulka degmada Baydhabo Mudane Cabdullaahi Cali Watiin oo ay sheegeen in muddadii dhowrka sano ahayd uu joogay degmada Baydhabo waxyaabo aad u fara badan uu ka qabtay oo ay kamid yihiin dayactir uu ku sameeyay qaar kamid ah wadooyinka magaalada Baydhabo yoonu mahadiyaan wali hadidaaleen wali dadaala doonaan hadan siyaadiyaan dadkii hataa siyaadiyo dadkii siyaadiyo waloogii nabad maltii dhiib kuleel iyo dadaal iyo roor badan maamulka cusub hawlo badan oo la qabtaa jira hawlihii la qabto fiicnaa inaad meeshooda ku haysaan ama ka sii kordhisaanin wixii dhimana oo aan hore loo qabanna inaad qabataan qaar ka mid ah wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ayaa iyaguna si aad ugu amaanay Mudane Cabdullaahi Cali Watiin sida wanaagsan oo ugu shaqeeyay degmada Baydhabo muddadii sanadada ahayd uu joogay maamulka may ku fadaanaysaa soo kale in si dhow la shaqeeyaan laamaha dawladda si gaar ah wasaaradaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Baydhabo waa caasimad marka ma ilaahay maadaama caasimada ta wasaarad kasta xiriir dhawaan la inta maamulka degmada aniyo si dhow la shaqeeyaan waan hadhawayaan rajaydo insha Allah isbedelka socda way baqfadaan Baydhabo ni haldeed odayaashii dhaqanka bulshada reer Koonfur Galbeed inta rugta maamulka kan kiiga mafadaas wasaaradda arrimaha gudaha ani magacaawd xilli kasta naga toy mise wasaaradda arrimaha gudaha uu roogno mise qofkalka way fadaan in la gudub doorasho beledku sidii goobtii xaqiiqda markay uu nagan walbada la ku qobay eediyada ee walleen ku qobadi aragteen jidida la soobi waxyaabo badan oo horumar la ku soobi buundooyinka la soobi hadana koogu rooga inta la soobi kusimaha madaxweynaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ahna gudoomiyaha golaha wakiilada dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Mudane Abduqaadir Shariif Sheekhuna Maye oo gabagabadii munaasabada ka hadlay ayaa si aad u amaanay gudoomiyihii hore ee degmada Baydhabo Mudane Cabdullaahi Cali Watiin waxaana uu ka codsaday inuu la shaqeeyo gudoomiyaha cusub ee maamulka degmada Baydhabo xilka aad la socotaan waxa waay meerto waay sida mas'uuliyadda gooraysan ay sheegeen mas'uuliyadda xilka cid si gaar ah ayada u leh milkiyadeeda ma jiro cid u dhalatay ama waxa waay dhaxal waxa waay waa boqortooyin baa la kala dhaxli jiray laakiin mas'uuliyadda sida ay sheegeen mas'uuliyadda iga horeysayba gudoomiyaha Watiinba uu sheegay waxa waay meerto waay qori isku dhiib waay qori isku dhiibka ciyaarta ugu sahlan oo afar qof waxa waay la tartansiiyo ayagoo marka magac ama dal ama koox
mathalay waxa loo dhiibo waxa waa afar qofood oo kale ka soo horjeeda ay 400 mitir waxaa la rabaa in meel laga bilaabo meesha ugu dambaysa la gaaro marka xilkan aad u jeedaan iyo mas'uuliyaddan waa qor isku dhiibkaas nin markuu meel gaarsiyo nin kale kala sii qaadaya qof kale ka sii qaadaya laakiin muhiimadda ugu weyn waxa waaye in guusha dadku ugu horeey qaatay la noqdo ay asetiin la tagana marka yoolka la gaarsiyo runtii marka gudoomiye waa ku mahadsan tahay waanad ku amaanan tahay waxa waaye uma baahnid inaad sheegto uma baahnid wixii aad qabato taariikhda waxa waaye marqaati ka ah waxa maragma doonta ah oo cidna aan laga baryeynin taxanaha iyo mas'uuliyiinta soo martay degmadan Baydhabo marka laga hadlayo nin walba maalinkii xilkaas loo magacaabay maalinkii uu ka tagay iyo horumarkii uu sameeyay taxanahaas inaad ku qoran tahay siraajaysa warbaahinta qaranka Soomaaliya Baydhabo aqoon-is-weydaarsi ku aadan qayb qabyatirka dastuurka dalka ayaa lagu qabtay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud waxaana ka qayb galay ururada bulshada rayidka ee halkaasi iyo deegaanada kale ee ku hareeraysan Cadaado. Cabdi Xasan Rooble ayaa warkan ka soo diray magaalada Cadaado. aqoon-is-weydaarsigan oo ku saabsan doorka dhalinyarada iyo haweenku ay ku leeyihiin ka qayb qaadashada dib u eegista dastuurka Soomaaliya ayaa maanta lagu daahfuray magaalada Cadaado waxa uu socon doonaa muddo 3 maalin ah. wasaaradda dastuurka Galmudug oo kaashanaysa wasaaradda dastuurka Soomaaliya ayaa soo agaasintay aqoon-is-weydaarsigan si gooniya waxaa diiradda loogu saarayaa doorka iyo xuquuqda ay haweenka iyo dhalinyaradu ku leeyihiin dhamaystirka dastuurka Soomaaliya oo ay hadda dib u eegis ku socoto. gudoomiye ku-xigeenka degmada Cadaado Nuur Yarow Xeyle Shaarib Bacde ayaa daahfuray aqoon-is-weydaarsigan si gaar ah ay wax uga soo baxaan in dib u eegista dastuurka waxay waana ogtihiin waqti dheer oo socda ilaa xilligan hadda ma uu soo dhamaan oo xilliyo dhamaad doona horta Ilaahay baa og laakiin in la wada ogsoon yahay laga wada qayb galo xogna laga wada qaato hadba meeshuu marayana ay dhalinyarada iyo haweenku ay aad u og yihiin waxaan noo suuragelinayaa in fikir dadkooda og yihiin ma taqaanaa lala socod lala sameeyo oo xataa wixii hadda caqabad ku ah xataa laga doodo wixii ma taqaanaa dhibaato dalka ku ahna laga reebo waa muhiimad gaar ah noo tahay. gudoomiyaha dhalinyarada Galmudug Caruuse Macalin Maxmed iyo agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga Galmudug Cabdirashiid Maxamed Cabdi ayaa bogaadiyay dadaalada wasaaradda dastuurka ay ugu jirto dhamaystirka iyo dib u eegista dastuurka Soomaaliya. haddana waxaa la rabaa sida gudoomiyuhu sheegay in la qoro oo la diiwaan geliyo waxyaalaha dadku ay u arkaan in dastuurka ama laga jaro ama lagu daro talada ay bixinayaan awoodaha ay leeyihiin laftirkooda in lagu daro la rabaa inta badan waxaa la sameeyaa haweenka kala qoonta loo sameeyay laakiin dhalinyaradu dalka ayaga iska la yiraahdaa minority ka yihiin inta badan marka waxaas oo dhan waxaa la rabaa in dadku ay faham ka qaataan faham guud laga qaato ka bacdina maagta lagu daro waxyaabaha maagta asleedihiin waa muhiim dadkana ay gaarsiisaan because dadka waxa meesha u joogtiin waa urur walba dad u matala muqta dhalinyaradu marka dad saambala laga soo qaaday laakiin waxa loo baahan yahay dad kale in la sii gaarsiiyo. agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka Galmudug Cabdikariye Maxamed Axmed ayaa sheegay in si loo dhameystiro dastuurka Soomaaliya ay wasaaraddu mid magaalo ilaa tuulo ay ku howlan tahay sida ay u gaarsiin lahayd isla markaasna bulshada aragtidooda ay uga dhiiban lahaayeen. runtii baahiyada ayaga ah waa kuwa muhiim ah waa kuwa u baahan in si fiican oo wada jir ah la isaga qayb qaato haday tahay wasaaradda haday tahay ururada bulshada qayb siiba gaar ahaan dhalinyarada iyo haweenka wasaaraduna arinta waxay u aragtaa inay tahay arin laf dhabar u ah dadaalka loogu jiro in xuquuqda haweenka iyo dhalinyarada laga dhaxelo dastuurkan soo socda. runtii dastuurkan hadda aan haysano ay qabyada ah tala badan lagama gelin ummadda Soomaaliyeed waa dastuur ay ka soo shaqeeyeen dad yar oo kooban oo matalay markaas bulshadii saaxadda siyaasadda ku jirtay. runtii dastuurkan si uu noqdo mid ay leeyihiin ummadda Soomaaliyeed kana turjumo baahiyaha saxda ah ee ummadda waxa laga maarmaan noqotay in la gaarsiiyo min caasimad degmo ilaa tuulo in la gaarsiiyo oo ilaa qofka miyiga jooga dastuurka loo geeyo laga hadlo xuquuqaadkiisa uu hubiyo in la geliyay si ugu dambeyn aftida dadweyne ee dastuurka sax ahaansho ka dhigaysa qofkaas loogu horgeeyo oo qofkaas uu ansixiyo. Cabdi Xasan Awowe warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Cadaado. dowlad goboleedka Galmudug waxa ay xooga saaraysaa waxbarashada farsamada gacanta waxaana magaalada Dhuusamareeb maanta ka furmay
mashruuc waxbarasho farsamada ah lagu barayo dad ama dhalinyaro ka badan 65 qof waxaana ka qayb galay furitaankaasi mas'uuliyiin ka tirsan maamulka magaalada Dhuusamareeb. Faafahinta warkan waxaa halkaasi ka soo diray Maxamed Deeq Cabdi Maxamed oo Dhuusamareeb jooga. mashruucan oo lagu baran doono xirfadaha gacanta ayaa waxaa ka faa'iideysan doona 65 ruux kuwaas oo isugu jira rag iyo dumar isla markaana ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. waxyaabaha la baran doono ayaa waxaa ka mid ah barashada samaynta korontada iyo sidoo kale alxanka iyo waxyaabo la mid ah iyadoona 7 qaybood ee dadka loo qaybin doono isla markaana ay baran doonaan xirfadaha gacanta. mashruucan ayaa waxaa maalgelinaysa hay'adda CBD taas oo ka howlgasha deegaanada Galmudug. Cabdikaafi Maxamuud Cali oo ka mid ah hay'adda mashruucan maalgelinaysa ayaa waxa uu ka warbixinayaa waxyaabaha dadka la bari doono iyo sida hawshan loo wadi doono iyo meelaha laga fuliyo oo ka mid ah deegaanada Galmudug. mashruucan iyo waxyaabaha uu yahay mashruucan waxaa la yiraahdaa Economic Development and Livelihood Investment Project oo ah mashruuc loogu talagalay in lagu horumariyo dhaqaalaha iyo nolosha dadka shaqaysta ama xirfadlayaasha iyo dadka ganacsatada. mashruucani wuxuu inta badan ka socdaa degmada Dhuusamareeb iyo degmada Cadaado wuxuu ka socdaa waxyaabaha loogu talagalay inuu door ka ciyaaro waxaa ka mid ah sare u qaadida ganacsatada sida qaybaha caanaha ama waxa la xiriira xoolo dhaqatada sida caanaha oo kale. qaybaha kale uu xoog saaro waxaa ka mid ah ganacsatada yaryarka sida ayuutada oo kale. waxyaabaha uu kale xoog saari doono waxaa ka mid ah dadka xirfadlayaasha ah. gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb Macalin Nuur Cilmi Cabdulle ayaa waxa uu ku booriyay dadka fursada u helay in mashruucan ay ka qayb qaataan lana baro xirfadaha gacanta in ay ka mira dhaliyaan ayna noqdaan kuwo dadka kale tusa si loogu daydo in waxyaabaha la barayo ay ka mira dhaliyaan. intaanu hadday barato imisa xaafadada magaalada ka degan tihiin shaqaalaha wada noqon kartaan. magaalada waxaa ku yaala ilaa 9 ceel baa ku taala intoo kalena waa u sii rabnaa hadii alla yiraahdo. way u baahan tahay jidadu waaweyn baan samayn doonaa oo la biyo galiyo korontadu way si ballaaran doontaa baabuurta way ku soo badan doontaa. marka makaanignimada barataan ilaahay waa idin barakayn doonaa laakiin waxaan rabnaa inaad noqotaan dad soo jiida sumcad. CBD waxa ay wado ka badan inay keento dadkii ka shaqeyn lahaa idinka waa hay'ado kale inay ku soo daydaan oo ay yiraahdaan annaguna intaas ka badan aan bixinaynaa waxa weeyaan dadka laga raba adinka waayo. wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug Axmed Deeq Cabdi Maxamed ayaa dhinaciisa waxa uu sheegay in wasaaraddu xoogga ay saareyso in dadka xirfadaha gacanta la baro. meelaha hadda aan xoogga saareyno oo mar walba u saaciyeenayno in wax laga bedelana ay tahay in dadku xirfad ay yeeshaan si looga baxo faqriga iyo shaqo la'aanta. waayo haddii qofku uu xirfad uu leeyahay inuu kabani ama muxuu ahaa qof inta raadiyo shaqo i raadiyo uu ka marmaa. waayo haddaa xirfad leedahay gacantaada wax taqaano marka ugu yaraato gurigaada iyo dariskaada anfacaysaa. sidoo muxuu ahaa gudoomiyuhu sheegay waxyaalaha hadda la baranayo waxyaalaha runtii aad iyo aad loogu baahi badan yahay. Maxamed Deeq Cabdi Maxamed warbaahinta qaranka Dhuusamareeb. halka daawadayaal warkaas aad kala socotaan waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho. wararka dibaddana waxaa ka mid ah dalka Maali askar ka tirsan wadankaas ee lagu dilay deegaanada xadka ku yaala gaar ahaan xadka ay wadaagaan dalkaasi Burkina Faso oo ay markaasi ka dagaalamaan kooxo xag jir ah. ugu yaraan 25 askari oo reer Maali ayaa dhimatay 60 kalena waa la la'yahay kadib markii kooxo xag jira ay weerartay 2 saldhig oo ciidanku ay ku lahaayeen magaalooyinka Bulkezi iyo Mondoro oo u dhow xadka ay wadaagaan Burkina Faso iyo dalka Maali. dhacdada ciidanku ku dhintay kadib howlgal ayaa ka bilowday deegaanadaas kaas oo iska kaashanayaan ciidamada Burkina Faso, Maali iyo ciidanka Faransiiska oo Maali ka howlgala. waxaan lagu dilay 15 ka tirsan kooxaha xag jirka ah. Maali waxaa ku soo laabtay falal xasilooni darro ah tan iyo 2012 kuwaas oo salka ku haya dagaalada qowmiyadaha iyo kooxaha xag jirka oo qoyga dalkaasi qaybo ka mid ah maamulkiisa la wareegay. weerarkan cusub ee lagu laayay ciidamada Maali waa mid ka mid ah weeraradii ugu khasaaraha badnaa ee dhawaanahan dalkaasi ka dhaca waxaana cambaareeyay wadamada galbeedka Afrika.
daawadayaal warkii habeenimo aad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho wadana socodsiinayay anigoo Ibrahim Gudle xilligan waa naga intaa warkan kiisa kale intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مانصدني وبروديق waxaanay ka hadlaysaa dhacdadii 14 Oktoobar 2017 ka dhacday magaalada Muqdisho inkastoo geeridu xaq tahay isla mar